assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. halkani waa garaa TV qodobada aad xilligani daawan doontaanna waxaa ka mid ah maamulka Puntland oo dhaqaale ku bixinaya kala furfurka beelaha SSC Qaatumo si uu u fashiliyo maamulkaasoo dhowaan aqoonsi ka helay dowladda federaalka. dowladaha Soomaaliya iyo Qatar oo gaaray heshiis ay xukuumadda Qatar ku shaqaalaysiinayso ilaa 10,000 oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed. xukuumadda madaxweyne Cirro iyo waxgaradka reer Awdal ee ka soo horjeedaha Somaliland oo shir uga furmaya magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka baxay shirweyne uu horay u cilaamiyay kaasoo la filayay inuu isku keeno mucaarid iyo muxaafidba iyo beesha caalamka oo qawaaf ka qaaday tallaabadaasi iyo faahfaahinno kala duwan oo ka soo baxaya qarax khasaare dhaliyay oo ka dhacay magaalada Muqdisho. qodobadaasoo faahfaahsan ayaan idiin soo gudbinaynaa haddii Allaha awoodda leh raalli ka noqday diyaar garooba saaxiibayaal. waxaase ku xasuusinayaa haddii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan. macadka diiniga ah ibnu cabbaas islaamic online wuxuu ugu bishaaraynayaa ardayda qurba joogta in hab online ay uga baran karaan qur-aanka kariimka, hikaada, siirada nabigeenna nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee, axaadiista, sixidda carabka iyo af Soomaaliga. macadku wuxuu ugu barbaarinayaa ubadka diinteenna suuban ee islaamka iyo afkeenna hooye ee Soomaaliga hab casri ah oo online ah goob kasta iyo goor kasta. waxay faahfaahintaas dheer kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda. aan ku bilaabay mas'uuliyiinta maamulka Puntland ayaa waqtigani maal iyo maskaxba ku bixinaya sidii ay u kala furfuri lahaayeen beelaha degan SSC Qaatumo si loo fashiliyo maamulkaasi curdinka ah oo aqoonsi ka helay dowladda Soomaaliya. SSC Qaatumo oo dhowaan ku soo biidhay maamulada rasmiga ah ee hoostagaya dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa caqabad xooggan ka wajahaya xilligani Puntland iyo Somaliland oo labada daraf ku haya kuwaasoo la dagaalamaya jiritaanka maamulkani fadhigiisu yahay magaalada Laascaanood. hase ahaatee Somaliland ayaan haatan saamayn badan ku lahayn gudaha SSC Qaatumo tan iyo markii ay gacmahooda ku kala ciil baxeen sanadkii 2023 waqtigaasoo maamulka SSC looga dhawaaqay magaalada Laascaanood lagana soo saaray ciidankii Somaliland ee halkaasi joogay 15 sano ee ka horeysay xilligaasi. hogaamiyaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa tan iyo markii ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu booqday magaalada Laascaanood bishii hore ee Abriil kagana dhawaaqay halkaasi in SSC Qaatumo ay ka mid tahay maamulada rasmiga ah ee hoostagaya dowladda dhexe ee waddanka. waxa uu bilaabay dadaallo uu ku fashilinayo maamulkaasi isaga oo hadda adeegsanaya maal iyo maskaxa intaba. Siciid Deni ayaa socdaalkii ra'iisul wasaaraha kadib waxa uu ka sheegay warbaahinta in tallaabada Xamse Cabdi Barre lagu keenay magaalada Laascaanood ay ahayd fudayd iyo wax aan lagala tashan maamul goboleedka Puntland sida uu hadalka u dhigay Siciid Deni. madaxweyne Siciid Deni oo sida ka muuqata doonayay in ay isaga soo weydiistaan tallaabo kastoo ay qaadayaan madaxda SSC Qaatumo ayaa sidoo kale carada uu ka qaaday safarkii ra'iisul wasaaraha. waxa uu xariga kaga jaray maxaabiis reer Somaliland oo ku xirnaa magaalada Garowe ee caasimadda maamulkaasi Puntland kuwaasoo ka mid ahaa askartii lagu qabtay dagaaladii gobolka Sool ee dhex maray SSC iyo Somaliland. wararka aynu hadda ka soo xiganay ila muhiim ah oo ku sugan magaalada Garowe una dhuun daloola xaalka SSC iyo Puntland ayaa waxay sheegayaan in xukuumadda madaxweyne Deni ay xilligani dhaqaale u isticmaalayso kala furfurka beelaha SSC Qaatumo si loo fashiliyo maamulka firdhiye dadkana loogu muujiyo in beelaha halkaasi degan aanay jirin maamul ay heshiis ku wada yihiin.
inkastoo dowladda federaalku ay sheegtay in SSC Qaatumo ay tahay maamul goboleed rasmiya oo dowladda federaalku ay la shaqaynayso haddana waxaa jira waxyaabo weli dhiman oo dhinaca farsamada sida isku keenidda beelaha iyo dastuuru samaynta maamulkaasi waana arrimahaasi kuwa ay hadda ka hortegayso Puntland si uu weli qabyo u sii ahaado maamulka SSC Qaatumo beelaha ay dhaqaalaha ku bixinayaan siyaasiyiinta Puntland waxaa ka mid ah beesha warsangeli ee degan gobolka Sanaag taasoo hadda ay xisaabsanayso SSC Qaatumo waxaana dhaqaalahaasi ujeedkiisu uu yahay in waxgaradka beelaha warsangeli aanay aqbalin maamulka SSC Qaatumo inuu ka shaqeeyo deegaanadooda inta badan haatan deegaanada beesha warsangeli waxaa gacanta ku haysa Puntland taasoo diidan in ay raacaan maamulka SSC Qaatumo halka dhinaca kalena maamulka firdhiye ay muhiim u yihiin deegaanada SSC Qaatumo si ay ugu yaraan u helaan gobol iyo gobol barkiisa maamulka siciidani waxaa sidoo kale la sheegay in xitaa beelaha dhulbahanta qaarkood ay isku dayayaan inay dhaqaala siiyaan si loo fashiliyo maamulkani oo ay u arkaan mid iyaga ka tillaabsaday islamarkaana xiriir wanaagsan la yeeshay dowladda federaalka oo haatan khilaaf xooggan uu kala dhaxeeyo siciidani wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa horumar ka samaysay heshiiska shaqaalaysiinta dhalinyarada Soomaaliyeed si kor loogu qaado fursadaha shaqo abuurka ee dalka dibaddiisa dowladda Qatar ayaana hadda shaqaalaysiinaysa ilaa 10,000 oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah kadib markii labada dal ay arrintaasi heshiis ku gaareen wafdi uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda Soomaaliya Yuusuf Maxamed Aadan oo ku sugan magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa kulamo miradhal ah la qaatay madaxda dowladda Qatar gaar ahaan madaxda wasaaradda shaqada ee dalkaasi dhinaca kale guddiga farsamada ee iskaashiga shaqada dalalka Qatar iyo Soomaaliya ayaa ku kulmay magaalada Dooxa si ay uga wada hadlaan nidaamka shaqaalaysiinta iyo hirgelinta heshiiska shaqada oo ay labada dal kala saxiixdeen heshiiska shaqaalaysiinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Qatar waa mashruuc lagu shaqaalaysiinayo in ka badan 10,000 oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah kuwaasoo iskugu jira dhalinyarada xirfadaha leh iyo kuwa aan lahayn dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay ka go'an tahay dadaalada fursadaha shaqo loogu samaynayo dhalinyarada Soomaaliyeed oo sanado xiriir ah dalka iskaga cararayay si ay nolol uga raadsadaan wadamada Yurub iyo Ameerika kadib shaqo la'aanta iyo dagaalada sokeeye ee ka jira wadanka taasoo keentay inay xaalado adag wajahaan dhalinyarta Soomaaliyeed Qatar oo kaliya ma aha dowladda federaalka ayaa wada dadaalo ay ku doonayso in dalalka carabta ee hodanka ahi ay shaqaalaysiiyaan dhalinyarta Soomaaliyeed waxaana dhawaan arrintani ay kala hadashay dowladda federaalku wadanka boqortooyada Sacuudi Carabiya oo isaguna ballan qaaday inay shaqaalaysiinayaan kumanaan ka mid ah dhalinyarta Soomaaliyeed ee iskugu jidha rag iyo dumarba madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ayaa magaalada Boorama wada hadallo kala furaya hogaamiyaasha Awdal State iyo aqoon-yahanka gobolkaas ee ka soo horjeeda xukuumadda Somaliland madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Ambassador Maxamed Cali Aw Cabdi oo magaalada Hargeysa dib ugu soo laabtay kadib 7 maalmood oo ku maqnaa gobolada bariga ee Somaliland ayaa isla 7kan u baxaya magaalada Boorama oo dhaqdhaqaaq iyo Somaliland diid ah laga dareemayo muddooyinkii dambe ila wareedyo ka agdhow madaxtooyada Somaliland ayaa noo xaqiijiyay in madaxweyne ku-xigeenka wada hadallo toos ah uu Boorama kala furaya hogaamiyaasha ugu sarreeya Awdal State oo ka dhisan Mareykanka kuwaasoo ka soo horjeeda Somaliland waxaana hogaamiyaasha ay yimaadeen magaalada Hargeysa iyadoo lagu qanciyay inay wada hadallo la furaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa si xal looga gaaro
tabashadooda sidoo kalena madaxweyne ku-xigeenka ayaa dejinaya kacdoonna soo guuxaya oo ka dhan ah somalilan kuwaasoo ka bilaabmay magaalada boorama tan iyo markii wasiirkii hore ee arrimaha dibadda haddana ah wasiirka gaashaandhigga soomaaliya axmed macalin fiqi sheegay inay taageerayaan kacdoonnada midnimada soomaaliya ee ka soconaya gobolka awdal isagoo ambaasador maxamed doonaya inuu kala furfuro silsiladahaasi xirmay xoguhu waxay intaa ku darayaan in xukuumaddu diiday inay xidhaan dadka arrimahaasi wada taas beddelkeedana waxay door bidayaan in wadahadal lagu xalliyo iyadoo arrintaasna ay bogaadin badan kala kulantay xukuumadda madaxweyne cire iyo ku-xigeenkiisa isla sidoo kalena toddobaadka soo socda waxaa 7 sano kadib awdal imaanaya ugaaska guud ee samaroon oo madaxweynihii hore u diiday inuu cag soo dhiga dhulka somalilan kaasoo qayb ka ah wakhtigani wadahadallada la iskugu soo dhoweynaya awdal iyo somalilan madaxweyne ku-xigeenka ayaa u muuqda mid door weyn ka ciyaaraya sidii uu sumcad uga heli lahaa somalilan iyaga oo dadka falanqeeyaasha ahna xaqiijinayaan inuu rabo inuu noqdo madaxweynaha somalilan madaxweyne ciro dabadii si dhow waxaa loo eegayaa qaabka somalilan u qanciso hogaamiyaasha awdal state iyo nuuca heshiiska ee dhinacyadu ay ka gaaraan kacdoonnada iyo khilaafaadka soo jiray muddooyinkii dambe ee bulshada beesha samaroon ee gobolka awdal ay kaga soo horjeeday jiritaanka somalilan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka laabtay shirweyne uu cilaamiyey bishii abriil ee sanadkani kaasoo uu sheegay inuu iskugu keenayo dhammaanba daneeyaasha arrimaha siyaasadda ee waddanka mucaarid iyo muxaafid intaba saamilayda siyaasadda ee dalka soomaaliya iyo wakiilada beesha caalamka ayaana xilligaasi si weyn u soo dhoweeyey shirka uu cilaamiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud maadaama oo loo arkayay in dalka looga badbaadin karo cakirnaanta siyaasadeed ee haatan uu ku jiro iyo kala aragti duwanaanta sii xoogaysatay siyaasiyiinta mucaaridka ah oo ay ugu horreeyaan madaxdii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed maxamed cabdulaahi farmaajo xasan cali khayre iyo xubno kale ayaa si weyn u soo dhoweeyey gogosha uu fidiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo uu ku sheegay inay tahay mid ay dadka soomaaliyeed uga tashanayaan aayahooda siyaasadda iyo mustaqbalka sidoo kale wakiilada beesha caalamka ayaa si weyn u bogaadiyey shirkaasi uu cilaamiyey madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka waxaa sidoo kale ka mid ahaa dadka soo dhoweeyey shirkaasi madaxda maamul goboleedyada ee khilaafku kala dhaxeeyo dowladda sida hogaamiyaasha jubbaland iyo puntland oo ku tilmaamay shirkaasi mid fursad u noqon karaha badbaadinta soomaaliya haddaba iyadoo shirkaasi la sugayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa wax ka bedelay ballanqaadkiisii hore iyo gogoshii uu fidhiyey waxaana uu iskugu yeedhay oo kaliya ama casuumaad u diray madaxda maamul goboleedyada ee koonfurta ama la saaxiibka ah filla soomaaliya kuwaasoo shir muddo kooban socday ku yeeshay magaalada muqdisho kadibna warmurtiyeed soo saaray iyadoo intaa kadibnaha ay iskaga kala laabteen maamuladii ay ka yimaadeen dabcan dhinacyada qaar waxay rajaynayeen in shirka madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee la saaxiibka ah madaxtooyada uu horudhac u noqon doono shirweynaha uu horay u cilaamiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud hase ahaatee taasi ma suuro gelin oo madaxda maamul goboleedyada ayaa dib iskaga kala noqday kadib warmurtiyeedkii laga soo saaray shirkii ka dhacay caasimadda muqdisho tallaabadaasi ayaana lagu tilmaamay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu si cad uga laabtay gogoshii uu horay u dhigay ee uu ku sheegay inay iskugu imaanayaan saamilayda siyaasadda ee dalka waxaana sidoo kale tallaabadani ka xumaaday wakiilada beesha caalamka ee taageeraha soomaaliya daneeyaasha beesha caalamka ayaa dadaal ku bixinayay intii uu socday qabanqaabada shirku sidii ay uga soo qaybgeli lahaayeen dhammaanba dhinacyada saamilayda siyaasadda iyo xitaa madaxda maamul goboleedyada ee aan heshiiska la ahayn madaxtooyada
balse beesha caalamku waxay ku guuldaraysatay oo kaliya in shirka ay ka soo qaybgeliso hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe kaasoo ay si cad u diiday filla Soomaaliya inuu soo xaadiro maadaama ay sheegtay inaanay u aqoonsanayn madaxweyne sax ah ama sharci ku jooga Jubbaland. Axmed Madoobe oo 15 sano ka talinaya Kismaayo ayaa nasiib u leh in uu ku caanamaalo fursadaha noocan iyo kala dawlad kastoo ay isqabtaan markii ay u geli weyso waxay siisaa aqoonsi ku meel gaara waxaana hadda suuragala in fursadihii hore oo kale uu ka dhexelo markani khilaafka kala dhaxeeya madaxtooyada wadanka. qarax xoogan ayaa ka dhacay inta u dhaxaysa degmooyinka Daynile iyo Daarusalaam ee gobolka Banaadir kaasoo loo adeegsaday miina wadada hareeraheeda lagu aasay. daryanka qaraxani ayaa laga maqlay meelo badan oo ka tirsan caasimadda wadanka ee Muqdisho iyadoo la soo wariyay khasaare ka dhashay. wararka soo baxay waxay sheegeen in qaraxani lala eegtay gaari ay wateen gudoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda iyo maamulka degmada Daynile iyo gudoomiye waaxeed ka tirsan isla degmadaasi. goobjoogayaal ayaa ku waramay in qaraxa ay ku nafwaayeen 2 qof oo la socday mooto bajaaj daba socotay gaariga ay wateen mas'uuliyiintani ka tirsan maamulka degmada Daynile kuwaasoo kala ahaa darawalkii mootada iyo nin rakaab ah oo saarna. gudoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda iyo amniga maamulka degmada Daynile ayay wararku sheegeen inuu ka badbaaday qaraxa iyadoo dhaawac fudud ka soo gaaray gudoomiye waaxeedka gaariga la saarna. meydadka dadka dhintay ayaa muddo saacado ah yaalay goobta uu qaraxani ka dhacay oo u dhaxaysa degmooyinka Daynile iyo Daarusalaam iyadoo markii dambana la aqoonsaday halkaasina laga qaaday meydadka dadkii waxyeeladu ay soo gaadhay ee dhintay. ilaa iyo hadda ma jiro cid loo soo xiray qaraxaasi waxaana laamaha ammaanka ee magaalada Muqdisho weli ay wadaan baaritaano la xiriira inay ogaadaan cidda ka dambaysay qaraxaasi iyo howlgallo lagu baadigoobayo dhagarqabayaasha. ilaa iyo hadda ma jiro cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxani hase ahaatee waxaa falalka noocan iyo kala ah looga bartay inay ka geystaan caasimadda kooxda khawaarijta ah ee shabaab. wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga inta nabadgelyo.